waxaan ka hadlaynaa mooshinkii Saylac ee sida rasmiga ah ee saxda ah u dhacay ee xildhibaanada iyo gudoomiyuhu ay ku xidhan yihiin iyo gudoomiye ku-xigeenku xariga xaqdarrada waxaan u sheegaynaa Somaliland haddii ay wax ka qaban weydo arrinta Saylac oo iska indhatirto waayo wuxuu ahaa kal fadhi si rasmi ah u dhacay oo iyadu qabatay oo iyadu gacanteeda ku fulisay imikana aan waxba ka socon annaga oo ku hadlayna amaano ku hadlaya guddiga dhalinyarada gobolka Saylac waxaan u sheegaynaa haddii mooshinka wax laga qaban waayo inaan gacanteeda wax ka qabanayno waxaan leeyahay dawladdu xeer bay leedahay xildhibaano inta leeri way ni dhamaato si fiican baan liigu qabtay shirkiina waanad hesheenay haddana la leeyahay ma nihirin ciyaal yaryar baa dadku marka laga tucsana waxaan la leeyahay siibana Saylac baan la leeyahay waxaan leeyahay Saylac ankaagu ha dhaafo sheekadan aad wadi annagu waxaan nahayn raggii aad shalay toole codka aad ka doonaysay bari toolana aad u baahan doonto haddii aad sidaa wadid annaka bari toole waxa naga helaysaa haba yaraatay ma jirto waxa noogu soo hagaagtina ma jirto haddii ana sii day weydin raggaas gudoomiyahayga iyo xildhibaanada dhammaantoodba waxaan ku hadlayaa xariga xaqdarrada lagu xidhay xildhibaanada golaha deegaanka haddii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka cusub ee loo doortay haddii lagu sii deyn waayo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland haddii uu ka sii deyn waayo waxaan leenahay arrinkaa si degdega ayaan gacanteeda wax uga qaban dhalinyarta Saylac waxaan kan aad iyo aad uga cambaaraynayaa xildhibaanada xarig sharci darro lagu qaaday lagu xidhay una ku xidhay amar ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka ninka Saylac la yiraahdo shalay toole may dooran bahad celiyo qura waxaa dooratay ayde Samaroon ama Ciise ama Isaaq cidna horan gibiyo dhan wada doortay may dooran qura markaa wuxuu sameeyay kan qabyali mid kalena xisbigan kulmiye markii hore waxaan ugu jirnay xisbi wuxuu bila qabiili waa xagga cadaaladda ku fiican laakiin imika waxa ka dhex bilaamay musulmaanka intuu ninkaas Saylac cida faraha wada galay hawsha halkan waxaan ka cambaaraynaynaa mooshinkii golaha deegaanka ee sida saxda ah u dhacay sida xaqdarrada haddana laga yeelay waxaan cambaaraynayaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku cambaaraynayaa adigu waa lagu soo magacaabay kuwanse waa la soo doortay cod dad bay ku joogaan meesha 17 xildhibaan bayna khusaysaa arrintaay ciddii kale soo faragelisay waa cid ka doonaysa waxyaaba musuqmaasuqa ama Somaliland ku cusub markaa waxaan ka codsanaynaa cidda ay khusayso gobolka Awdal iyo Salel cidda ay khusayso odayaal iyo cuqaal arrintaa in si degdeg ah wax looga qabto ayaan anagu niga codsanaynaa